reer Arsenal wali waxay dhex mushaaxayaan toddobaadyadoodii guulaha xalayna waxaa garoonka St James Park ay ku jajabsadeen kooxda Newcastle United oo waliba ay ku garaaceen 2 gool iyo gool goolashaasi oo yimid qaybtii labaad ee ciyaarta bilowga goolka koowaadna waxaa lahaa Garnacho Xhaka oo fariiqiid lagu sharfay kala baxay goolkii Newcastle. It's a brilliant strike from Xhaka. waxaa raacsaday Mas'uud Ozil oo dib u bilaabayba bandhigiisii goolasha. And then he's passed brilliantly into the net by Ozil. He's marked his 200th Arsenal appearance. halka goolka qura ay la timidna Newcastle uu yimid gabagabadii ciyaarta waxaana u dhaliyay Claret. That's a better ball in, and Newcastle did just moments before. 2 gool iyo gool ah waxay guusha ku raacday kooxda Arsenal oo maalmahanba jamaahiirtu heer Arsenal waxay la dhacsan yihiin hanan ciyaareedka macallin Unai Emery iyagoo maankooda iyo xiskoodaba ka saaray macallimkoodii hore ee Arsene Wenger.